markii Facebook saas aad u gashid ama khad saas aad u gashid haday qofka maskiinnimo ay kala muuqato inaad caawisid xaqaad u leedahay gabadhan markay saan ay dhahay aabahayga intaas uu iga maqan yahay aniga gabar saas ahaan ahay ay dhahayso saas ahaanan u galay xumaatana ma u galin qof mustazabaj inay tahayna waa dareensanaay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukuntay 52 sano jir aan wax xishooda lahayn kaas oo qaab sixir ah gabdhaha inta uu ku ballamiyo muuqaalo kaga duubi jiray kadibna soo dhigi jiray barta bulshada ee Telegram intaan ugu gudagalin sheekada hadii ay taamirkii kugu wareysad ma soo booqato nagu soo biir maasan maxkamadda gobolka Banaadir oo maalmahanba ay ka socotay dhageysiga dacwado loo haysto mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo loo haysto in ay galeen eedo musuqmaasuqa ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin la sheegay in uu qaab sixir ah gabdhaha inta uu ku soo xareysto muuqaalo kaga duubi jiray ninkan oo lagu magacaabo Abuukar Maxamed Xasan Shoble oo 52 jir ah ayaa maxkamaddu waxa ay ku soo eedeysay in uu galay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin falal la xiriira galmadaasi waxa uu la sameyn jiray dumarka la qabo oo kaliya dhibanayaasha uu dhibaateeyay ninkan 52 jirka ah ee aan xishoodka lahayn ayaa waxa ay sheegeen in uu ku soo xirgeliyay markii hore qaab sixir ah qaarkoodna waxa ay sheegeen in uu kala dagay gawaari ay wada saarnaayeen ee kuwa dadweynaha ah ninkan ayaa waxa uu ka faa'iideysan jiray dadka u baahan caawinaada ee la soo dhigo muuqaaladooda baraha bulshada gaar ahaan Facebook oo ka cabanaya dhibaatooyin haysta si bulshada Soomaaliyeed ay u caawiyaan ama dadka baafinta loo sameeyo ee raadinaya dadkooda ka maqan isaga oo telefoon ka wici jiray kadibna sidaasi ugu sheegi jiray war uu isagu adeegsaday oo aan la soo bandhigin maxkamadda gobolka Banaadir oo 3 mar oo kala duwan dhageysatay eedda loo haysto ninkan ayaa maanta ugu dambeyn waxa ay ku xukuntay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay 3 kamid ah eedihii lagu soo oogay dadka aragti dhiibtay xukunka maanta lagu riday eedeysanahan ayaa waxa ay sheegeen in aysan ahayn in 10 sano oo xarig ah lagu rido ayna tahay in la marsiiyo waajibka uu diinta islaamka qabo ee ah in la rajmiyo maadaama oday uu yahay guurna uu horay u soo maray